سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ما الله سبحانه وتعالى إلهي بكلي ما الله سبحانه وتعالى waxaan maanta idinku yeeray laba qodob baan doonaya maanta ka hadlo mid waxa weeye safarka madaxweynaha iyo raashinka ka keenay magaalada Saaye ciyaalkan madaxtooyada fadhiistay xamar mid waxa weeye shacabka reer Soomaaliland oo iyagana aan fariin u diriyo marka hore waxaan aad iyo aad u hambalyeeyaa horta wadanka Gini iyo madaxdooda sida cisiga leh ee sharafta leh ee wafdigeeni madaxweynuhu hogaamiyay soo dhaweeyeen waxaan u aragnaa talaabada maanta aynu qaadnay tan iyo tii ka horeysay ku tagnay Kenya ya qaar badan soo socda insha Allah taala in noqon doonto qaar horseeda siin u heliheen xuquuqdeeni wehele waxaan sheegnaa dadka reer Soomaaliland horta marka ugu horeysa Soomaaliya dawlad kama jirto qalad weyn baheed inaynu nidaaha Soomaaliya la hadlina dawlad aan jirin in la hadlo maaha laga bilaabo waxaan jecelahay madaxweynuhu ku soo noqdo in qaraar la soo saaraa dawlad soo saartaa la yiraahdo wax wada hadala oo Soomaaliya la yeelana maadaama aanay jirin dawlad Soomaaliyeed oo dadka ka wakiila oo nala siman oo dadku soo doorteen oo cashuur qaadata oo xuduudiyeeda ilaalisa oo badeeda ilaalisa aanay jirin la fariisamayno Soomaaliland iyo Soomaaliya laba dalbe ahaayeen mid waa jira kii kale ma jiro ka kale markuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u yimaado oo waliba gacan ka geysanayno ayaan wada hadli doonaa wada hadalka Soomaaliland ay la leedahay kolba kooxda timaada xamar waxay nagu qootay dhibaato marka wadamada u tagno aan ilaahay waxaan jecelahay inaanu dal jiri jiraan nahay 60kii iyuu ka baxay in i'tiraafnaan baan rabnaa waxay ilaahan dawaata idin wada socon Soomaaliya de ka hor dhici mayno bilow heshiisyaane marka dhibaato bay noo keentay waxa adduunka dawladaha i'tiraafada dawlad i'tiraafta member states ay i'tiraafa failed state dawlad aan jirin oo aynu dawladii aynu isleeyahay ka adkaanay ka bacay dawladii ma jirin marka waxaan leenahay wada hadalada hala joojiyo xiriirka hala joojiyo biidihina aleedin dawladda Soomaaliya ma jirto maanta ciyaalkan Koreeda ah dadkii dalka u badnaa dawladii afweyne nacabka ahaa riday ficil tamiyaan ayuu ka soo dhaxbaxay inankan yar la yiraahdo farmaajo fiila Soomaaliya waxa fadhiya wax weeye farmaajo عود جمالك دهارات يا عبد العزيز عبد السعيد نكايلا أفرتين ما فديها waxay ku tashadeen inay Soomaaliya ay dib ugu celiyaan kacaanki waa caruurtii kacaanka ee dadaabiyo laga qaaday xiriya qaxoontiga ee Kenya oo wax ku soo bartay halka oo ciil qaba waxay isticmaalayaan laba arrimood mid waa mid lacag ba isticmaalayaan wadamo shisheeye ka heliyaan mid waxay isticmaalayaan nabad sugidii wadamada dictatorska iyo ciidamo shisheeye waa taasi keentay in baydhaba 15 qof ay ku dilaan qofkii doonaya ay saaraan ninkii dadku doonaya xiraan wata keentay in maalin kasta xamar ay dadka ku laayaan dadka bajaajka wada ku laayaan wata keentay inay guriga ugu dhacaan dadkii xoreeyay Soomaaliya ka xoreysiyad bare wata keentay inay meedkooda xitaa cidla ku aasan waxay markaas ku hamiyaan waxay yiraahdaan markaan ka soo adkaana dawlad goboleeda Soomaaliland galino ugu qaadanayso ku sheekaya waa afartayna yar iyo inta caga ku qaxataan hadaba waxa siiyay dhiiridnimada waxa siiyay waxa weeye maamul xumaanteena kala qaybsanaanteena uqaasheena salaadiinteena qabyaalad ma wax kale hadlin waxa leenahay madaxweynaha waxaan leenahay dadka hamide madaxweynaha waa dadka mideeya daldalaacii ka soo qabtay ku dhacay doorashadii ka kaba waxaan leenahay waa in doorasho u qabta
doorasho waa inuu qabtaa dowladaha hoose iyo wakiilada qabta dalkan waxa weeye waxaad moodaa imanka inuu istaagay aanu shaqaynayn taas waxay keentay frustration dhalinyarteeni calankii faqashta ay hawadaan qaarkood ay xamar tagaan qaarkood u heesaan niyad jab baa ku dhacay dadka waa in dadka niyadooda lasoo hagaajiya waddan laguma wadi karo micro management ninka waa single minded masax keliya iyo qofku ma wadi karo waxaa intaa ka daran reer yar halkan degan oo maxamuud saleebana ayaa isna inoo hanjabiyey halkan iyagana ku sheegay maxamuud saleebaan waa cabdi ciise ka badan cabdi ciise maamul bay samaysteen ya dowlad bay iska dhigeen ya puntland bay la baxeen innaga abada sooliya sanaag baan xoreynayna sooliya sanaag horta ma yaqaanaan sudaanka ay warsigeen waxaan leeyahay war wala maxamuud saleebaan aan wax ka aqdhicinaynin dhulkaaga dagaal ka gelin yaanu noqon sanaagta bari dhul lagu reegdimo yaanu noqon waa xaaraan bay ka tahay in xadka Soomaaliya bedelaan oo maxamuud saleebaan ay bedelaan super power iska sheega hadda durbaanka qabiilka la joojin waayo waxaan sheegay maxamuud saleebaan dagaalka ay koonfurta ciid degan wad garanayso waa niman irira haddana waxa siidagu ugu dhufto maanta siidiga haddana ugu dhufto in sandwich ka dhigi doono xamarku wajiyo wasaasan u sheegay xamar waa magaaladeedii haddana maanta tago walaala joogin marka aad anaga xamar magaaladeeda naga dumin karo maxamed siyaas baa naga dumin kari waaye ya afartiyada ciyaalkii kureedii Soomaaliya wax ma yeeli karaan waxaan leenahay Soomaaliya ha toosto madaxweynaha waan soo dhaweynaa waxaan leenahay anaga iyo wadani aan soo dhaweyno aan tusno inaanu anagu qaranka Soomaaliya ka soo horjeedin mucaaradana he maamul xumada ka soo horjeedin nidaam darada ka soo horjeedin sharci darada ka soo horjeedin saami qaybsanaanta aan dadku u sineen magaalada awoodda dalka aan ka soo horjeedin oo leenahay cadaalad reform buu dalkan u baahan marka waxaan ugu baaqayaa xusub kala mucaaradka ee wadani inuu British soo dhaweeyna madaxweynaheena tusna cadowga kaftankeena iyo loolankeena ay moodeen inaynu isku soo gurmaneen intaan isku soo gurmano ayaa waliye bila anagu dabar la cunaa leena shaf la cunaa male wiliga yal naga ma adkan never in history aan wiliga leena jibin laana wiliga dulmi kuma aanu dulma sameeyno oo istaafacna xaqan ku dagaalana marka ciyaalka aan taariikhna garaneyn Allah waxaan ku leeyahay waxaad ku jirtaa oo u magan tahay walaalo yar oo tagtay dalkan maxamed siyaad bari wadriidnay USC ayaad u magan tahay waa ku aad kaga jirto taangiga ka raacday markad baxays ee suuqa tagi karin برق ده عود يعني كله يجمعيره وهنقول أنا هاي وسوتشنا وويك أب كول شيء توحي كل عين وويب كروتشول وحنا توصية هالكمانته لإنسان ينود الحسدي قال لي نقول قارن ما يصير سمعنا أنا كلام بخبطين أول بالله على الدونا لا سعان أول بالله على الدونا برد بالله محيب أنا يدوين قريبين ما تغير الدبا إيه كتيرة ومجانو لبي لبعضن كن أو إذا ماشي شيء أي مجانوي أنا ومجانو من هي أنا دلك يتشوفنا ما كان ولا واحد يدوها صحافة ده وقت أنا وكذا بس كده بتاع دولة ده we have to rally behind the president and the government وأنا دبك الله ما أنت وحيلات تيتان ما أنت وكله 9/11 كله ما تاي 9/11 كل عاي مجانا سمريكان أي ما أنت عيال كان ماشى فريستي وحي سميين أي لم تاي وأنا تهدين إن الرجع مجانا في USC بنادر يجوا يسكفوا جي عيال كانوا وحي كهرلين حسد كحلين وأنا كسود ويننا هو كان حنا كود ضيدا أو موشية إنا إهل نهاي أو موشية لنا جبر بري كرين توصى يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسبيرا معارف وداني يوفق بسيم اللي سنبارك سعد واحد وانا وش هيك هذا وانا وش هيك دورة شاقبته دولة شقي ساقبته وطيلة حقبته دولة هي الدولة دي سي الشعب ويكلقوين ما أنت واحد إنه أركوا حويه دولة عن شقينين واستجنت مدحوينه كليه ما شقين كرو waxa leenahay doorashada la qabto riishaba ha sameeyo dawlad tayo leh
oo maanta waxaan haysanaa opportunity fiican baynu haysanaa intaasoo waddamoon la xidhiidhno diyaar inoo ah hadda insha allahu tacala laakiin haddaan gudaheenu hagaagsaneen dee waxba iskama celin karno siyaasadda dibadda waa reflection wata gudaha dadka niyaddooda hala soo celiyo garbaan isqabsano doorasho inoo dhacdo dad tayo leh ilaahay subxaana wa tacaala nebiga yuusuf markii loo dhiibiyey xilka wuxuu yidhi waxaan ahay xaafidu amiin baan ahay buu yidhi dad xaafidu amiin aan samayno oo karti leh oo ammaanada ilaalinaya dibjiriintan meesha fadhida sida cabdiraxmaan dheer oo kale doonuu fadhiya 15 sano waa inaan ka tuurna dusha dad tayo la keena oo ammaanada ilaalinaya dawladda hoose maanta dawladda hoose ma haysana bilaa sharci weeye magaalada waa gudaafad kaliyaha ku xanuunaya baabuurta iska dayna isbeer baardo inaga isbeer baar u baahanna god miiran bay noqdeen saasi lacag soo cunayaan si deertay kuwaas waan ka tuurnay insha Allah taala marka la eriyana wala la geliyaa audit inta dhul qaateen waxay marayaan imaka xaqan salaxlay toon bay u dhow yihiin si dhulka u iibsanayeen way habta ka jira Soomaaliya Kenya tarsan waar waxaa lama hadlo waar ma tarsan baa haysta waxaan la haysto lahaas hada qiimeynaya markaad safarkaaga ka soo noqotay waxaad sheegtay in madaxweyne farmaajo uu diyaar u yahay wada hadal maxaad maanta ku keentay Soomaaliya maxaa ka dambeeyay behaviorkooda ka dambeeyay behaviorkiisi in yaro qabiili uu noqday atiisi qabo maskax waxa ka qabo noqday ma xukumi karaan waa haraagi maxamed siyaad barawey never again mudane gudoomiye magacaygu Cabdiraxiin Axmed Maadi telefishin Bulshaya ka socda dhawaan magaalada Hargeysa waxa ka qabsoomay shir ay yeesheen salaadiinta deegaanka bariga Sanaag iyo Soob oo cali khalif qayb ka yahay siyaasiyiinta arrintaas shirkaas sidoo warkiisay soo tahameen maanta kadib saan qadad u sameeyay tamad arag Soomaaliland baa la mideynaya tabashadooda la dhageysanaya wax bari galbeed iyo galbeed Soomaaliland waa mid waa family way shaqeeyeen wata maanta wada qadayna si cadam iyo gid wada qadayni ya waxaan taageersan soo dadkeeni ma ayaga adeegada isigu shiireeyaan waxaan dhaqan habar dhul baahantay waxaan dhaqan warsigeeliye haday one item iska dhigeen waa fiicantay laakiin waa dadkeeni xildhibaan Cabdiraxmaan Dheer wuxuu ku eedeeyay Soomaaliya horumarkeedu doonayo dhinaca kalena uu ka hor istaagi doono community international war ma xasan wasiir war in ka war heed naga tag idiga waxa ka dhigay macawad baa wasiir khaarijiya xaqu xukuma war qorshe ma wada hadal damo jira ma jiro wada hadal damo jiro waxaan ku marka hore waynu qaldanay waxa nagu qasbay mara Ingiriiska oo nimankii waxa jiray US marka dalka haystay laakiin markii hore waxay hadeen dawladaha laba jeerba waynu ka adkaanay dawlad aan hadalna ma jirto in adduunka la xidhiidhnaa oo aynu adduunka wadan oo macdanteena istiraatiijiyadeena aynu iibinahay dimuqraadiyadeena inaga isku meeraysanay oo iibin kari weeyno isku sinay inuu cawadiyo waxaan qeyr keenayn jamaal inala soo hadalaa marka waxa weeye kaasi wasiir maaha waa inay yaro been ku nool inay yaro reer garoowa xagu meel qoran ma xukume